Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland uu berri ku wajahan yahay magaalada Muqdisho, halkaas oo la filayo in kulan ay garwadeen ka tahay beesha caalamka uu ku dhex maro madaxda dowladda federaalk iyo siyaasiyiinta mucaaradka. Kulamadan ayaa ku soo aadaya xilli ay cirka isku shisheerayso khilaafka siyaasadeed ee ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo hanaanka maamulka dalka, iyadoo mucaaradku ay sheegeen in muddo-xileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka harsan tahay 4 maalmood oo kaliya. Mucaaradka ayaa dowladda ku eedeeyay inay dib u dhigtay wada-tashiyadii siyaasadeed, halka Villa Soomaaliya ay dhankeeda ku adkeysanayso in dalka uu u baahan yahay xasillooni iyo in wadahadal lagu dhameeyo tabashooyinka jira. Imaanshaha hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ee Muqdisho ayaa loo arkaa mid muhiim u ah dadaallada socda, maadaama ay Puntland ka mid tahay maamulada sida weyn uga aragtida duwan dowladda dhexe sida arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka.